اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan waxaan u fadhinaa inaan soo gudbino xisaabta hadalka iyo wax sheega badan oo na soo gashay oo nalagu eedeeyay annagoo doonayna inaanu dadka iyo dalkaba wax u qabanno. baan doonaynaa dadkii sida xun wax loogu sheegay inaan cadayno wixii na soo galay iyo wixii aynu ku qabanay. waxaa na soo galay $4,000 oo Sheekh Saciid Axmed Cadar soo maray waqtigii tsunamigu Taleex uu ka dhacay. waxaa ku xigay oo na soo gaaray $3,000 oo lacagtii 40,000 ahayd oo Somaliland laga reebay oo iskuulka loogu talagalay hoose dhexe. waxaana soo gaaray 1,800 oo ay soo direen dad jooga Birmingham oo deegaanka u dhashay. 8,800 baa waxaa lagu bilaabay shaqadii koobaad oo iskuulka laga qabto. waxaa laga qabtay oo galay jingad waxaa galay 308 xabo oo lagu dhuftay $6.5 $2,002. waxaa lagu galay qori 2x3 169 oo lagu dhuftay 9.3. waxaa galay 4 xabo oo qoriga la yiraahdo qori cadka oo 4.5 ah. waxaa galay qoriga la yiraahdo taawar xayraanka oo 32 xabo oo lagu dhuftay 8. waxaa galay masaabiirta koofiyadka oo jingada lagu garaaco 9 lagu dhuftay 4. waxaa galay 21 iyo bad masaabiirta qoriga oo lagu dhuftay 3. waxaa galay garaa'id 3 xabo oo lagu dhuftay 8. waxaa galay sibir 19 xabo oo lagu dhuftay 9. waxaa galay sakaaladii lagu shaqeeyo loo fulay guriga oo $120 uruskeedii noqday. waayahay waxay noqotay lacagtaas $4,343.2. waxaa soo baxay oo kale oo laga qabtay oo gacan ahaan loo isticmaalay lacag $2,200 waxay noqotay nijaarintii ka shaqeeyay gacanta. waayahay 100 lacagtaas ah waxaa loo qaaday masaajidka oo markaa waxyaalo yaryar gaareen cid ka shaqeysay maalintii. waaye 100 waxaa loo qaaday qolo agoon ah oo lacagtii 40 ahayd markii la qaybinayay ay ahayd in la siiyo oo aan la siin. saxaafadii dhowrka jeer wax soo duubtay marna waxa la siiyay 100 marna 200. waxay soo noqotay isu geynteedii 300 niis iyo ciid iyo biyo iyo dadkii ma garanaysa ay alaabta ilaalinayay intii iskuulka shaqadiisu socotay. total waxay isku soo noqotay $1,024 $3,724 bay xisaabtaas isku noqotay. isu geyn xisaabtaas waxay noqotay xisaabtaas $8,067.2. sida iyadoo ay tahay 8,800 oo la hayay aan ka jaray. waxaa soo haray 8,000 waxaa soo haray $732.8. sidaas hawshii lagu xiray aniguna safar ku galay lacagtaasuna reesta ku ahayd gurigana markaa waxaa u dhignaa safiitadii gashay waxay noqotay $240 lagu dhuftay 700 iyo bay noqotay 20 waxay noqotay $240 lagu dhuftay 3 720. waxaa galay baashida safiito 95 875 bay noqotay. gacantii safiitada nijaarintii xidhay waxay noqotay 450. waayahay xaawo aadan maxamed yare 400 waxay ku soo reebtay oo lagu soo reebay markii la isweydiiyay wiil gaari ku jiray Garoowe gabadh markii uu jirayna wiilkii muddo xidhnaa. dabadeedna maadaama la ogaaday inaan waxyaalahaas ayna soo mareen waxaa la wiilka waxaa la idinka rabaa qoliyo jooga Garoowe xaawo ay hogaamiso xaawo aadan maxamed yare oo gudida kamida 400 inaad ugu ma garanaysaa hawsha 400 wiilka hawshiisa oo intaas ka baaqi ahayd baan u diray. 1,350 waxa weeye dadkii baa loo qaybiyay tsunamigu gaadhay iyo dadkii wixii ay ka gaadhay. $40 waxay noqotay sakaaladii safiitada 3,767.5 bay lacagtaas isku noqotay. total guud xisaabtana soo gashay markii dambe intaa waxaa ka dambeeyay $3,030 oo sheekha labada gole oo xiriiriyaha ah inoo dhaxeeya wixii aad idinku soo dirtaana soo marisaan wixii soo gaarana anagana soo marisa oo inoo dhaxeeya
الله بركة وحاسد إحدى كن يصدق كدولار النسوق على الشيخ سعيد أحمد لعقت عصو مركي لا يسكو صوت دوبي وعايزكون نقطة كوبي طبعا كونسيدير بقول صدن لبا كن يا لبا بقول يكونتن وحين نقطة العجها سيال أما الصحافة أما ويل كاحدا أما دتك وحي لو قيب شيء العجها أما الصحافة وقيب سمي بين نقطي سجال كن يشان بقول يسيديت إنه وحين نقطة لعقتها سكول كجشي وحي أنا قبلنا ووحى وقتنا واجلني وحبضنا وكشقيني ما أنت هدي أنا كشقين إذن كألا إذن كل الهامين إن هذا هوشاس كسو قيب قادتان أننا ألا نوديبين وأنا كنت دالين سيدي تيرم كان سكولك وصنوجا باقدين وحديقة شدي كم بدي يستيدين وصنت كالديجو وحن آد كنت دالي إن أنا وح قبلنا وحوي وحي أنا قبلنا يوم وحلا قد جاي بيحول شيء waxaad noo maqasheen idinkoo dad qiimo la ah dad hawl adag isu taagaya dad magac sare sheeganaya cid kasta oo hadasho ina u nuglaataan oo wax tiraahdaan ka bacdina idinkoo anaga nagu soo warcelin aad wax alaale wixii aad doontaan aad tiraahdaan taa waxay noqonaysaa wax annagana idinkana aan naaficidin ku jirin rabbina idinku la xisaabtamay annagana aad nagu xumaynaysaan annagana aan waxba noo kordhinayn waayo wax sheeg dad mas'uuliin hadii shaqo dhex marto waxa muhiim ah hadii tabasho loo kala sheego inta ayan waxaas ayan aad u gacan gelin ama cid ayan wax ka sheegin ama ayan isku dambaabin ama aynan isceebayn waxa wanaagsan inay isla soo hadlaan dabadeedna xaajada la iska qanciyo anu waxa ma ogeyn dhawaan baan ogaaday waxana weeye xoolaha intaad soo dirteen iyo inta aniga dad muxsiniin ay soo dirteen oo aan gudida ku wareejiyay oo qaybiyay waxa badan inta aan anigu qaybiyay oo gudida ku wareejiyay aniguna ma aanan hayn qof isu khasnajiyo oo isu gudoomiya oo isu gudiya oo idinka iyo aniga aan cid noo dhaxayn wixii aad keenteen oo dhami waa qorraxiyadaya wixii aan idin soo gaaray oo dhanna waxaan ku wareejiyay gudida sheekhana Allah barakeeyo sidii ay ahayd buu noo soo gaarsiiyay ana sidii ahayd baan gudida ugu wareejiyay حسابية بهوشة هينتري حسابية هوشة هينتري يقدوميها يقدو ذا بعد خار كألعاب تكوّد قاضي وحي القيبين ينا لما أنتوا أنت عصام صوكرني ورقد عصام صوكرني ورقد إيه كانان ورقد مركان ساعة وتشيكينو بان وحي الله استعمال أيه هو وجودي به أنا هو مشغول كيجا دي ما دام أيضا أو نحن نسأرك سوقون وذا الشقين دي واحد بدن والله جاي عبا إن المسلمانو لكن ما إيه ماشي هذا وهلا هذا السين ما إيه وحى هذا شيء ما إيه تمام معها وأنا وح أول واحد كده واقعين إن قولة هنوي هاي قولة إسبدل دون قولة ضد السكانات قولة عدي خلدنت حتى الله قدر داره لكن عد عن خلد لحين قولة صدا وحي لدونه اللي ويره هذا وحن جين الله سمايه بقوله النقطي وحنويه ما دام عد حساب تعمانته هشين طل عيب لينو هانينا قولها أنا قمانت اللي قبل عبو خصي من نقون معيه وحنويه برشاد وحويه كبرتي أو كوماسو نقطيه كبرتي أو كامتكو رجيني هالك عن قولي دمانتي وحديقة قشين دنبي قاعدة قشين إلهي هني كسامحه أنا قلنا وأنا ذي كسام حواية دل إيكين بدل مايو تلقي باتهين تلقي أو ده هدي وحيد ما ده هذا ندب عينه يقول عيبه إنه عيب إنه الله يبعد ماشي كشيء لكن إنه يسبدلي خرمريو سمات بحنيو وحس قرينيو وحس لا قفك وخل ضم إن لا صاروا كما إذا تلقين بان دين سلام يا العكتي كله وتمي أفر كل يبقى هيد أو الشيخ سعيد أحمد سوق عدي ونسوق قارسي العكتا وانو قيبيني waxaa loo qaybiyay kun waxa la siiyay iskuulka xagga waqooyi kaga yaala magaalada oo 2 mitir maraya dadkii wadayna halka ay dhaafin kari waayeen wax horena aan soo gaarsiino markii hore ay iskuulkan hadeerto waxyeelada qaba hal dido markii kan hadeer la didayna waxaan u soo baxnay lacagtii 4,000 ahayd iyo asciidna soo sheekuna soo gaarsiiyay iyo 2,636 إن السوق عرسي رقية عمر علي وكسر ورسي
dadka deegaanka oo jooga Birmingham lacagta 60,000 6,536 ah waxaa loo qaybiyay 250 iyo qadar waxaa loo qaybiyay lacagtii 1,400 baa ka soo haray 400 waxaa la kala siiyay 4 qof oo macduur ah qayb dhimirka ka xanuunsanaysa qayb indhala qayb nin jaban oo ma garanaysaa Ali Maxamed Cabdi la yiraahdo oo muruqmaal ah wastaad aha dabadeedna mar hore lug buu ka jabay guri buu ka soo dhacay haddana sanadkan iyadoo waqtigan uu iska adag yahay caruurna uu leeyahay uu ka dhacay 4 qof min 100 baan siinay kuna waxaan siinay iskuulka intii kalena waxaa loo qaybiyay dadka aad arki doontaan oo labada dhinac koonfurta iyo waqooyiga loogu kala qaybiyay dadka 250 iyo 8 aba qaatay waxa weeye wixii hore nooga soo gaaray waa waxa dib nooga soo gaarayna waa sida aad baad u salaamantihiin wixii aad nagu sheegteen oo dhanna rabbi baa idin kala xisaabtami doona laakiin anagu idin ka saamaxayna ilaahaysi inuusan idin saamaxin baa laga yaabaa intiina daba waxaan noo maqasheen dad sufaha ah oo doonaya ilmahooda aan mas'uulkahay oo kaanu aabihi wax ugu soo dhibnay oo wixii ka cunay baa noo maqasheen annagoo rabbi subxaanahu wa ta'ala iimaan nagu filan iyo adduun nagu filan ba ilaahayna siiyay oo saaka sabab aan waxyaalaha aanu doonayno inaan ajar ka dano ummadana asaasiga u ah qofkii sidayadaba hantidayada wax ku lahaa mid aan u soo dirteen hadaan gaarsiin weyne taasna waxa weeye wax dhibaato dadka aan noo maqasheen waxa weeye laba qolo kaliya weeye waa laba qof wax naga sheega qof dumoodaya waxan in la cunayo oo doonaya in qayb siiyay iyo qayb doonaya midba wax buu oranaya mid wuxuu oranaya hawl baa igu timay ilmaan jaamacad u dhiganaya wax iga siiyay mid wuxuu oranaya dhakhtar baan rabaa waxa laga soo asbaabta u soo dirteena waa garanaysaa laakiin midanimaan cunin ma qabtaan qof walibana waxa uu shaqeeyo xidibteeda buu helayaa marka ilmaha reer waad mahadsantihiin intaasna xaaladdu haynoo joogto wixii aad soo dirteen haddii waxa wax ka burayihiin waad soo gudbinaysaan waxaad noo soo marinaysaan wixii xoga gudoomiyaha labada gole oo ina xidhiidhiya Sheekh Saciid waa nin ku filan hawlaha loo idmaday waa nin waqti iyo wax sheegba ku bixiya sidii dadkaasu dadkan waa badad u la dhashay deegaamada oo dhan ama islaamnimo ama ehelnimo uu wax u gaarsiiyo marka waxa laga yaabaa intaad maanta qofkii miyir qabay ama macquulka ahaa ama doonaya inuu wax qabto intaad xarishtaan oo qof wuxuu weydiisaan waxa laga yaabaa inaad sufaha u gashaan ka bacdina sida arintu 00 lagu dhuftay ay ku soo baxdo halkii ay lahaydeen aan ka korsayna inaan dib ugu noqono marka waxa weeye anigu golaha systemkii aanu hayo khastinimo waa ka gudbay waana iska casilay dib dambana uga mid noqon maayo laakiin waxaan jeclay inaad wax qabataan golaha hadeer idin jira oo aan ka mid aha oo culimada ah waxaan doonayaa hadaad isbedel doontiin inaad la sii shaqaysaan oo wixii aad qabanaysaan aad kala xisaabtantaan idinka laftigiinu waxa weeye markaad doonaysaan inaad wax qabataan oo degmooyinka wax ka qabataan inaad gobolka dad daacada sarfay u dirtaan laba qof inta kharashka ka bixsan gaadis tiraadaan qaado inaad soo jeekintaan dhulka la soo maro wixii la qabtay oo dhan la arko intuu soo taabsis ay noqoto markaas aad idinkaan dambi badan gelin ceeb gelin qof walaalkiina wax ka sheegin ilaahay weyna kala xaraamiyo wanaag mooy inaan xumaan isku ilaadino intaan waxa la gaadhin baan waxaan codsanayaa inaad hawlihiina dib uga warhaysaan hawlo badan baa yaal aadna way idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh